السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran janalka mar kale soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago wiilashii dhalinyarada ahaa ee shalay weeraray masjidkii ku yilay magaalada San Diego ee gobolka California oo magacooda iyo waliba da'dooda la shaaciyay gaariga ay wateen maxaa laga helay iyo waliba mid kamid ah wiilashaasi ka hor intii aysan weerar ka geysan oo hooyadii ay booliska la xiriirtay una sheegtay in uu waraaq uga tagay qoraal uu ku qoran yahay hubkeediina qaar ka mid ah ay weysay gaarigeediina uu qaatay booliskuna dabagal ayayba ku hayeen wiilashan ka hor intii aysan weerarka geysanin iyo waxaa sidoo kale si aadaa loo ammaanayaa waardiyihii masaajidka Amiin Cabdallah oo isagu badbaadiyay dadkii masaajidka ku jiray iyo waliba caruurtii wax ku baranaysay waxaana lagu tilmaamay geesi saddexda qof ee geeriyootay ayuuna ku jira islaam naceebka Mareykanka hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE maxay diiwaan gelisay FBI-duna maxay sidoo kale leedahay imisa naceeb muslimiinta loo qabo ayay diiwaan geliyeen sanadkii u dambeeyay ayaan sidoo kale idinla wadaagaya haweeneydii ururka Feeding Our Future ee aan faa'iido doonka ahayn madaxda ka ahayd ee Amy Barr oo Soomaalida lacagtan hadda lagu eedeynayay inay qaateen iyadu u qaybisay khamiista ayaa la xukumaya haddaba dacwadoogayaashu imisa sana ayay soo jeedinayaan in lagu xukumo qareenkeeduna muxuu soo jeediyay imisa sano in lagu xukumo Amy Barr ayaan idinla wadaagaya shalay masjidka ugu weyn magaalada San Diego ee gobolka California laba wiil oo dhalinyaro ah ayaa weerar ku soo qaaday xilli salaadii duhur ay dhaweed labada wiil ayaa magacyadooda la shaaciyay waxaana lagu kala magacaabaa Kane Clark oo 17 jir ah iyo sidoo kalena Caleb Vasquez oo 18 jir ah ayaa weerarkaasi geystay haddaba weerarka ka hor maxaa dhacay wiilkan dhalinyarada ah ee 17 jirka ay yiraahdo Kane Clark hooyadii ayaa booliska la soo xiriirtay abaara saacadu marka ahayd 3:42 daqiiqo booliska waxay u sheegtay in wiilkeedu ay u malaynayso in uu doonayo inuu istilo maxaa yeelay qoraal ayuu uga tagay booliskuna waa ay diideen qoraalkaasi waxa ku qornaa inay warbaahinta la wadaagaan waxay hooyadu booliska ay u sheegtay in wiilkeeda uu wiil kale la socday isla markaana guriga ay ka waysay qaar ka mid ah hubkeedii dadka inta badan waalidiinta Mareykanka hub ayay haystaan laakiin waxa qasab ah in meel xiran aad geliso furahana aadan caruurta u ogolaanin inay ka agdhawaadaan waalidiin fara badan oo caruurtoodu ay iskuulla toogasho ka geysteen caruurna ay dileen ayaa loo maxkamadeeyay oo hadda xabsi ku jira marka arrintaasina waa muhiim marka hooyadu waxay booliska u sheegtay markii ay la soo xiriirtay in wiilkeedu waraaqdaasi uu uga tagay oo aan la sheegin waxa ku qornaa hubkeedii qaar ka mid ah ay laadahay isla markaana sidoo kale gaarigeediina ay laadahay gaariga nambarkiisa ayay booliska la wadaagtay booliskiina waxa ay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan kaamarooyinka wadooyinka ku xiran ee laysinka ama number plate-ka akhriya inay la socdaan xitaa boolisku waxa ay ciidamo u direen mool ka agdhawaa gurigooda iyo waliba iskuulkii uu dhigan jiray wiilkaasi oo iskuul sare ahaa ayaa ciidamo loo diray marka waxa loo maleynayay in ama moolka aadayaan ama sidoo kalena ay mid ka mid ah iskuuladoodii ay aadayaan oo ay doonayaan inay bartilmaameedsadaan inta badan dhalinyaradu markii iskuulada ka qalin jabiyaan waxa laga yaabaa bullying in la cayn jiray waxyaabo saas argos ahaan ay iskuulada u aadaan laakiin labadan wiil nacaybka muslimiinta waxa ku beeray ayaa ilaa ay hadda boolisku ay baarayaan xalay guryahoodii ayaa FBI-du ay u daateen waxa baaritaan lagu sameeyay taleefanadoodii waxyaabaha ay daawan jireen barahoodii bulshada dhammaanba baaritaan ayaa lagu sameeyay marka boolisku marka iyagoo wali baaritaankii wada 2 saac ka hor intii aysan masaajidka weerarin ayaa markii ay saacadu ahayd 5:40 daqiiqo taleefanadii u horeeyay 911 ka wicitaanadii u horeeyay ay ka soo gaareen masaajidka boolisku isla markiiba 4 daqiiqo gudahood goobta ay tageen waxayna ugu tageen 3 qof oo masaajidka ku geeriyootay oo waardiyihii Amiin Cabdallah oo aaba 8 caruur ka tagay uu yahay uu geeriyooday waxaana la leeyahay waardiyaha haddii aysan ahaan lahayn dhimashada iyo waliba dhaawaca inta waa ay ka darnaa lahayn maxaa yeelay caruur fara badan ayaa masaajidka ku jirtay
oo wax ku baranaysay qayb madrasaha ayuu lahaa caruur fara badan oo muslimiin ah ayaa ku jirtay caruurtuna waxaa loo tababaray in marka arrimahan oo kale ay dhacaan oo rasaas la maqlo sida loo dhuunto meelaha la galo masaajidda iyo iskuullada tababaro noocaas ayaa caruurta la siiyaa waa ayaan daro in caruurtii da'yar goobihii cibaadada iyo weliba iskuulladiina loo tababarayo sida ay u dhuuman lahaayeen haddii weerar noocaasi oo kalaha lagu soo qaado iskuulkooda amaba goobaha wax lagu caabudo marka intaasi markii ay dhacday boolisku isla markiiba waa ay imaadeen waxayna arkeen labadii dhalinyaro ahayd oo gaarigooda isku dhex dilay waxaa gaariga laga helay qoraallo ay ku muujinayeen islaam nacaybkooda mid ka mid a hubka ay wateenna sidoo kale qoraal islaam nacayb ayaa ku qornaa laakiin ilaa iyo hadda lama soo bandhigin marka iyaga ayaa gaariga isku dhex dilay gaarigana sidoo kale waxaa laga helay hubkii ay wateen iyo weliba caagga shidaalka lagu qaato oo isaguna gaariga laga helay marka waxa ay doonayeen marka ay masaajidka galaan xitaa inay dab qabadsiyaan miyay doonayeen laakiin waardiyahaasi ayaa ka hor istaagay booliskuna waxa ay sheegeen haddii isaga aysan ahaan lahayn in dhibaatadu intaasi ay ka ballaarnaan lahayd waxaana lagu tilmaamay geesi naftiisa halis u geliyey si uu u badbaadiyo dadkii uu ilaalinayay waxaana dadka yaqiinay waardiyahaasi amiin cabdalla ay sheegeen in qof kasta oo masaajidka yimaado isagoo dhoola cadaynaya uu soo dhoweyn jiray islamarkaana uu ahaa qof saaxiib la ah qof kasta oo masaajidka imaanaya marka imaamka masaajidka Taha Xasan arintaasi aad ayuu u cambaareeyay waxaana uu sheegay uu amaanay waardiyahaasi uu sheegay in uu badbaadiyay inta badan dadkii masaajidka ku sugnaa maalnimadii shalay ahayd marka hadda boolisku baaritaankooda iyo FBI-du ay sii wadaan waxaana ay sheegeen in ay u baarayaan in ay tahay arin islaam nacayb dartiida weerarkaasi oo hadda baaritaankuna uu socdo inta badan masaajidda ku yaala gobolada New York iyo Los Angeles iyo magaalooyin kale oo Mareykanka ayaa hadda ammaankooda aad loo sugayaa baaritaankuna weli waa uu sii socdaa marka gaariga ay wateen wiilashan dhalinyarada ah waxaa lagu sheegay gaari BMW ah oo 2018 ah X1 SUV ah oo ah gaari cad sida aad sawirkan ka aragtaanba markii baaritaanku ay booliska ku sameeyeen oo waxyaabihii ku jiray ay soo saarayeen marka ilaa hadda magacyada ayaa la shaaciyay iyo da'dooda marka faahfaahinno dheeraada qoraalada islaam nacaybka oo ay wateen noodka ay hooyadii mid kamid ah wiilashan uu uga soo tagay qoraalku muxuu yahay booliska arrimahaasi oo idil weli ma aysan faahfaahin haddaba hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE ayaa waxa ay sheegtay in 8683 cabasho oo islaam nacayb Mareykanka gudihiisa ay diiwaan geliyeen ilaa iyo sanadkii 2025 waana tiradii ugu badnayd oo ay diiwaan geliyaan ilaa iyo markii ay bilaabeen in tixraac ay ku sameeyaan islaam nacaybka Mareykanka sanadkii 1996 xitaa FBI-da xogteeda waxa ay muujinaysaa in nacaybka muslimiinta ah ee Mareykanka gudihiisa loo qabo ama lagu bartilmaameedsanayo in ay ka mid yihiin kuwa ugu badan marka waxa ay diiwaan geliyeen 228 cabasho oo islaam nacayb ka dhan ah sanadkii la soo dhaafay oo kaliya marka hay'adda u dooda xuquuqda muslimiintana sidaas ayay diiwaan geliyeen 8,000 ka badan ilaa iyo sanadkii la soo dhaafay ee 2025 dhinaca kale haweeneydii madaxda ka ahayd ururkii Freedom of Future ee la xiray kadib markii musuqmaasuq iyo lacagtii ka badnayd 250 milyan lagu helay haweeneydii Amy Park ee Soomaalida inta badan lacagta ku xarqisay oo sumeysay ayaa waxa la xukumi doonaa maalinta Khamiista ee soo socota oo biri ee kaliya ay ka harsan tahay haddaba dacwadoogayaashu waxa ay soo jeediyeen haweeneydan in lagu xukumo ilaa iyo 50 sano oo xabsi ah sidaasi ayaa dacwadoogayaashu ay leeyihiin maadaama iyadu ay hormuud u ahayd musuqmaasuqa ballaaran oo lacagtii loogu talagalay xilligii coronaviruska caruurta in lagu quudiyo in la musuqmaasuqay iyaduna ay hormuud ka ahayd Amy Park oo 45 jir ah waxay ka mid tahay 65 qof oo amaba dambi lagu helay amaba dambigooda qirtay ilaa iyo sanadkii 2022 markii baaritaankan la bilaabay lacagtii caruurta loogu talagalay ee la musuqmaasuqay xilligii coronaviruska marka dacwadoogayaasha gobolka Minnesota ilaa iyo 79 qof ayaa dacwad ay ku soo oogeen 65 ayaana ama dambigooda qiratay amaba dambi lagu helay xukunka marka haweeneydan oo la filayo in maalinta Khamiista uu dhaco ayaa shalay maxkamadda horteeda waxa isugu yimid dacwadoogayaasha iyo qareenka waliba haweeneydaasi
haweeneydan Amy Park ayaa waxaa lagu helay bishii March ee sanadkii hore 7 dambi oo lagu soo eedeeyay iyada iyo mid kamid ah milkiilayaashii maqaayadda Safari oo Salim Saciid la yiraahdo oo isagana 21 dambi lagu helay waxaana sidoo kalena la sheegay in waraaqa been abuur ah ay soo dirsanayeen si lacagta loogu soo diro isla markaana aysan jirin in wax caruura ay cunto siinayeen dacwad oogayaashu sida ay sheegay waxay dalbanayaan Amy Park in 50 sano lagu xukumo halka sidoo kale qareenkeeda sidoo kale oo la yiraahdo Ken Odebiok uu isaguna dalbanayo in 3 sano oo kaliya lagu xukumo maxaa yeelay waxa uu sheegay in aan si cadaalad ahayn loo maxkamadeeyay haweeneydan waxana uu xaqiijiyay in inta badan dambiga iyada dusha laga saarayo waxana qareenkeedu uu dalbanayaa in loo naxariisto haweeneydan maadaama dambiyada lagu soo eedeeyay inta badan aysan galinayso isku dayday in ay joojiso musuqmaasuqaasi intii uu socday laakiin dacwad oogayaashu waxay yiraahdeen haweeneydan kama shalaynayso in ay dambigaasi gashay sidaas darteed waa in xabsiga ugu dheer lagu xukumaa kaasi oo ah muddo 50 sano ah marka Khamiista ayaan arki doonaa inta sano ee lagu xukumo haweeneydan Amy Park iyo waliba Salim Saciid isagana kulay lama shaacin in la xukumayo xilliga la xukumayo laakiin in uu lala xukumi doono maalinta Khamiista iyo in maalin ka dambaysa la xukumi doono waa la ogaan doonaa laakiin Amy Park Khamiista ayay ogaan doontaa inta sano oo lagu xukumo oo xabsiga ay ku jiri doonto